nin boqor ah ayaa waxa u dhashay caruur wiil ah. Wuxuu go'aansaday in caruurka isaga ah si boqoran uu u koriyo oo uu ka ilaaliyo dhammaan wax kasta oo xanuujin kara noloshiisa. Markaasuu wuxuu u diyaariyay dad dheelsiya, dad farxad geliya, dad raashin siiya iyo dad isaga uun diyaar u ah si uusan u dareemin xanuun. Caruurka isaga ah iyo koritaankii uu soo koray nuuc uu noqday iyo xikmadda qisadani leedahay ayaa waxaan ku falanqeyn doonaa kulankeena maanta ee kelmadiisu tahay xanuunka maahan xumaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wiilkii isaga ahaa marka maxaa qabsaday oo sida ukunta loo dhowrayay oo aabihiis qasriga ugu diyaariyay wax walba oo wanaagsan. Qofka qosliya, qof wax bara, qof ciyaar siiya, qof cunno siiya, yani wax alla wuxuu rabay oo dhan waxa loogu soo diyaariyay qasrigiisii. Laakiin wiilkii isaga ahaa markuu weynaaday xoogaa yar oo uu soo koray oo uu soo gaaray qaangaar ama teenage oo kale uu noqday, waxa uu bilaabay in uu qasriga darbiyadiisa banaanka ka fiiriyo bal nolosha banaankaas u taalo, dadka say u nool yihiin, waxa ay sameynayaan, sida xaalku yahay inuu banaanka fiiriyo ayuu isku dayay. Wuxuu arkay dad dadaalaya, ordaya, wuxuu sii jeclaaday inuu banaanka uga baxo qasriga si uu u arko nolosha banaanka ka jirta. Qasrigii banaankiisii markuu u soo baxay ayuu wuxuu arkay dadkii oo wada ordaya. Qofkan noloshii caruurtiisa u ordaya, kan waa dadaalaya, kan waa fashilmaya, kan waa guuleysanaya. Nolol wuxuu arkay cajiib ah, xanuun wadata oo dadaal wadata oo kufid wadata oo kala duwan. Wuxuu fahmay marka in aabihiis uu sirayay inta uu qasriga ku hayo dhan oo uu aabihiis ka qarinayay nolosha dhabta ah ee ka jirta waaqaca uu ku nool yahay, nolosha dhabta ah ee ka jirta dunida uu ku nool yahay oo aabihii ka qariyay oo la noolaysiiyay kaliya hal nooc oo nolosha ka mid ah iyadoo laga ilaaliyay dhammaan wax kasta oo xanuun ku keeni kara. Wuxuu go'aansaday marka inuu banaanka seexdo, darbi jiif noqdo, fashilmo, wuxuu dareemay xanuuno fara badan oo kala duwan, wuxuu dareemay murug kala duwan markuu u soo baxay oo uu arkay noloshii dhabta ahayd. Qisadaas marka waxaan ka qaadanaynaa intaan u gelin waxaan qisada ka qaadanayno arrintan isdul taago waxyaabo laga faa'iideysan karo. Waxa kamid ah qisadaas qodobka koowaad, caruurtaada aad dhashay ha ka ilaalinin xanuunka oo dhan, ha ka ilaalinin dhibaatada oo dhan. Faraha ka qaad, mararka qaar ha gubteen gubasho khafiif ah, mararka qaar ha fashilmeen, ha guul dareysteen, mararka qaar ha kufeen, ha dhaceen, ha tijaabiyeen. Nolosha ay qayb kamid ayay tahay. Laakiin hadaa sida ukunta oo kale u ilaalisid waxaad ogaanaysaa maalin inay dhici doonto in aysan ku ag joogin, maalin in la gaari doono in ay ka baxaan noloshaada oo laga rabo inay nolol samaystaan. Maalinkaas waa maalinka ay garan waayay kari doonaan siday u noolaan lahaayeen. Sida hadda ka hor ku dhacdayba dad gacmaha aad loogu hayn jiray oo hooyada aad ugu hayn jirtay ilaa ay uga guurisay iyada intay gabdho u keentay, iyada u keentay gabdhihii way u guurisay. Kadib waxaa dhacday inay u soo doonteen tala ah sideen u biilnaa maantay biilka aan bixinayn hooyo meeqaan ka dhignaa. in su'aashaas hooyadii la soo doontay heerkaas oo kale kugu gaarayaan hadii kale waxa kale oo ka faa'iideysan waxay tahay si kastood ilmahaaga ugu dadaashid, si kastood wax wanaagsan aad adigu saa isleedahay inay u wanaagsan aad ugu sameeyso, si kasto nolol wanaagsan oo qurxoon ugu diyaariso, ogow inay dareemayaan naaqus, inay dareemayaan inay wax ka maqan yihiin. Sababtoo ah waxay raadinayaan inay sugaan naftooda, waxay raadinayaan inay noolaadaan noloshoodii isla markaana tijaabiyaan tijaabo ayaga maaragta u gaar ah. Saa daraadeed wiilkiiba si kasto aabihiis qasriga gudihiisa ugu diyaariyay wax kasto wanaagsana wuxuu raadiyay banaanka u raadiyay xanuunkii ka maqnaa si uu u arko tajrubada saxda ah iyo tijaabada saxda ee nolosha ay leedahay. Saa daraadeed waalidow ha ka niyad jabin ilmahaaga hadii wax kasto wanaagsan aad u sameeyso isla markaana ay wili wax kale u sii hanqaltaagayaan ama aysan wax weyn u arkin ama ay wax kale ayagu raadinayaan ka duwan wax aad adigu wanaag u aragtay. kala dhalayo iyo tala dhalayo idinkuna waxaad ogaatiin in waalidkiin had ii gooraale wanaaga idinla jecel yahay, wanaag idinku fakarayo, si wanaagsan idinla jecel yahay. laga yaabay asaga markaas sida ula muuqato inayna adiga kula muuqan. hagaag xanuunka iyo raali ahaansho yarida waa labo kamida waxyaabaha qofka bini aadamka ah
uu ka samaysan yahay. saadaradeed mar walba waa nala jirayaan. haddaanay labadaa jirinna noloshu maba yeelateen macno. oo haddaanu xanuun jirin iyo wax ku dhaqaajinaya subaxii hurdada kuu diidayo kaa kicinaya ama uuna jirin heerkan hadda aad taagantay inaadan wili raalli ku ahayn ood raadinayso wax kale. labadaa iyaga ahayna waxayna barayaan inaan ku noolaano nolol wanaagsan, nolol saxan, nolol toosan oo had iyo gooraale ka maqan daldaloolka. sababtoo ah marka aan xanuunsanayno ama aanan raalli ka ahayn sida xaaladda hadda uu yahay, waxaan mar walba isku dayaynaa inaan dhaqaaq samayno. dhaqaaqaas oo keeni kara in tallaabooyin wanaagsan aan ku tallaabsano. dhaqaaqaas oo keeni kara inaan wax badan saxno, inaan wax badan ka bedelno nolosheena. tusaale ahaan haddii hadda aanan xanuunba dareemi lahayn, ka warrama dabka markaan taabanayno haddaanan ka xanuunsan lahayn oo gacanta la soo boodi lahayn oo xanuunka aanan dareemaynin, sidee nolosheena ahaan lahayn? waa wada guban lahayn soo maaha. saadaradeed xanuunka waa qayb ka mid ah nolosha. ha isku dayin inaad muqaawamayso, inaad resistance iyo diidmo aad kala hortagto, inaad caabiso. ha isku dayin ee aqbal oo ogolow. ha rajaynin weligaa nolol ka maran culeysyada oo dhan, يعني wax culays aan lahayn oo wada fudud wada smooth ah maanta oo dhan. sida saxda ah waa in noloshaada sida u badan smooth ay ku socoto, xanuun la'aan iyo dhibaato la'aan. laakiin ogow in mar iyo mar ay ku soo waajahayaan caqabado, xanuuno, hoosayn, in mawjadaadu dagayso. waxaas oo dhan la soco, sababtoo ah qayb nolosha kamid ah. waa qayb kamid ah korinshiyaha, waa qayb kamid ah baridda, yani casharada noloshana siinaysa qayb kamid ah weeyaan. haddaanay jiri lahaynna wax badan ayaa nolosheena ka baabi'i lahaa. haddaanay jiri lahayn xanuunkaas noloshu macno maba yeelateenba. marka mashaacirta iyo dareemaha iyo feelingska mararka qaar ku soo maraya ee niyad jabka iyo murugta iyo xanuunka ah waxay u taagan yihiin baaq oo kale. waa adiga oo lagu baaqayo oo kale. war maxamedow, war baraarug, war soo jeeso. xanuunka saasuu ku leeyahay. war waxbaa kaa khaldan, war dhaqaaq. wuxuu rabaa xanuunka inuu ka dhaqaajiyo oo fal dhankii kugu dhaqaajiyo. oo maxaad samaynaysaa? waxbaad wax ka bedelaysaa kaa khaldan. fal khaldanood ku socotay ayaad ka joogsanaysaa. maye waad fadhisay, waad dhaqaaqaysaa. inta ayuu xanuunku kugu dhaqaajinayaa. marka haddaadan adigu fahmin oo haday goral aad didan tahay ama aad isha ka laabanayso, dadka qaar noloshooda oo xanuun ku jiro ama ruuxdooda oo xanuunsanaysa ayay isha ka laabtaan oo way isdabaaliyaan. waxaan ku cayaartan dheel, qosol gal, riwaayad aad. wuxuu iska mashquulinayaa intaas xanuunka dhabta ah ee uga baahan fal inuu kula dhaqaaqo, ee uga baahan inuu u dhaqaaqo, asagoo moodo in xanuunku xumaan yahay. xanuunku xumaan ma ahan, mana kugu xumaynayo. in uu adiga ku dhibana uma imaanin, ee wuxuu ku wadaa fariin ee ka guddoon fariinta iyada ah. gunta iyo gunaanadka waxaan leeyahay, xanuunadana soo maray waxa ay yihiin alarmiyo, waxa ay yihiin baraarujiyaal. sida marka aad rabto dawada waqtiga cabaysa inaad ilaashato ama waqtiga aad soo kaceed inaad ilaashato, aad alarmiga ugu samaysanayso oo kale ayuu xanuunkuna alarmi ku yahay, baraarujiye ku yahay, fariin kuu sida oo ku dhahaya sidan ay noloshaada ku socoto sax maahan. xanuunkaasi ha noqdo mid jirka kaa soo haleela oo ku dareensiinaya qaabka aad jirkaaga ula dhaqantaa inay wax ka khaldan yihiin, ama mid dareemaha kaa haleela ha noqdo oo ku dareensiinaya in aadan si wanaagsan ula dhaqmin waxa dareenkaagu sheegayo, ama ha noqdo mid maskaxda kaa haleela oo ku dareensiinaya in caqligaaga sidii lagaa rabay aadan ula dhaqmin, ama mid ha noqdo ruuxda kaa haleela oo ku dareensiinaya ama kugu baraarujinaya inay wax ka khaldan yihiin xiriirkii wanaagsanaa ee naftaada iyo alle aad la lahayd. mar walba waxaad ogaataa xanuunku inuu xumaan ahayn ee uu yahay baraarujiye wanaagsan, fariinna kuu wada. markaad fariinta ka guddoontood aqbashana ogow si sahlan ayuu kuu dhaafi doonaa. halka marka aad iska dabaaliso ama aadan ka dhagaysan oo jalaq u siininna uu sii joogi doono, labalaabmina doono oo uu ku tusi doono xanuunkaas ka ballaaran kana weyn ilaa aad ka soo baraarugto. mahadsanid.